بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waa maalin qurux badan, hawadan aad u fiican magaalada London. Waa maalin sabti ah, waxaan u soconaa magaalada Cambridge oo ah magaalo taariikhi ah. London ayaan ka bixaynaa Finsbury Park station oo ah meel ay Soomaali badan degan yihiin. Waa magaalo degmo aad u camiran oo lagu yaqaano football club oo Arsenal oo ku yaalo. ولي سفر كينيا يا مجرنا بس وحن جعلها إذا لوداجو وربيتان وحن جرو كارلو يخان ريرو كاب وأكو سيف جريني سيد بقول كيبا صدق يحوجا ومركي تولوي كو سفر يسيد لندن بنان كذي وكار عاد مهم صدق يشبان يا سنة كي بحني مركز وحن جرو فاميلي أهان أو يبسم كثير أما جروب أهان marka runtii lacag badan ayaa ku save gareynaysaa. macnaa waa muhiim haddii aad tahay qof London banaankeeda baytri ku safrayo inaad kaarkan haysatid. anaga hadda maanta 100 iyo xoogaa ayaa naga bixi lahaa, laakiin kaarkan dartiisa 70 ayaa naga baxay. marka lacag badan ayaa ku save gareynay. marka waa muhiim haddii aad tahay qof oo baxayo ama caruurta mar walba wadaayo weekendiga oo kale محلا إنه كاركان خفك هيستو ويك إنديجنا وحميهم مر والبو إن هاد وقتي وكل حساب تنتو محايا الكانسليشن كيسار بدن كانسليشن كابدن مركا كانسليشن كنسيا ومهر تتوحى في عن إن بلان بي هاي سيتي إن وقت في عن ستيشن كايمانكيس مركا ومهم ويك إنديجا كانسليشن كيسار بدن سيدو كلام تولويك مركا تكتيد سيدا لندن عمل معها أو أفر إلى 20 ساعة وحول بسكيشن جاينا بسسكي iyo kulli tuulooyinka qaarkood basaskii waxay waa istaagaan macnaa 7 o'clock maqribkiiba waa istaagaan. marka waxaa fiican inaa markii aad tuulooyinkaas aadid aad weydiisid goormuu ku egyahay baska, goormuu tareenka ku egyahay. maxaa yeelay isku mid ma aha London iyo tuulooyinka oo kale sida London oo kale uma shidna. marka waa muhiim tuulooyinkaas markaad tagto inaad ogaatid basaska iyo markaas soo naqanaysid goormuu ku egyahay. waxaan imaanay Cambridge safar degan oo ma sha Allah qurux badan u ahaa. haddana waxaan qaadanaynaa hadduu Ilaahay yiraahdo baskii oo magaalada lagu soo wareejinayo. baskaas waxa waa bas kula wareegayo oo warbixin dhan magaalada ku siinayo. marka taasna waxay noo fududeynaysaa in magaalada dhan aan waqti kooban ku soo wareegno. waa magaalo shidan runtii waa ujeedaa dhalinyaro dalxiisayaal joogo, ardo badan waxaa hadda raba Cambridge inay imaadaan iyo waa magaalo oo taariikhi ah. marka baskii aan insha Allah taala tikidkii aan doonanayna hadduu Ilaahay yiraahdo. marka baskaasa insha Allah taala warbixin badan. bismillaahir rahmaanir rahiim. waxaan aadnay xafiiskii baska. marka waxaan loo yiri saacad kadib ayuu bilaabanaa. marka waxaan isniray intii uu baska ka imaanayo bal iska soo qaxweysta. marka waxaan imaanay maqaayadii qaxwada. marka waa soo qaxwo doonanay. weli waxaan joognaa ahayd magaalo oo ganacsi ah oo ganacsiga aad ugu shidan yahay, laakiin kadib ayaa waxay noqotay magaalo oo waxbarashadeed oo waxaa yimid dad culamo ah. markaasay waxay ka aasaaseen jaamacado iyo wixii, laakiin hadda dhaqaalaheedii boqolkiiba 30 macnaa dhanka waxbarashada ayuu ka soo galaa iyo dalxiisayaasha. iyo maadaama ay yihiin dad waxbarashada ku xeel dheer, shirkado badan ayaa inta yimid oo gaar ahaan kuwa teknolojiyada ah. Cambridge waxaa lagu yaqaanaa Nobel laureate macnaa Nobelka ayaa dad badan oo ardadooda ka mid ah ayaa ku guuleystay. ilaa 100 ku dhawaad qof ayaa Nobelkooda ku guuleystay. meeshii oo Oxfordna 53 qof ay ku guuleysteen. marka waa meel ikhtiraca aad ugu taariikh ahaan ku leh oo Isaac Newton meeshaan wax ka bartay, Stephen Hawking wax ka bartay. sidoo kalena waa meesha lagu soo saaray DNA-da lagu ikhtiraacay. sidoo kale waa meeshii shuruucda footballka ama kubadda cagta meesha lagu sameeyay waa Cambridge. waa rigooradii, fooradii iyo bluzioni, free kick iyo waxaasoo dhan meesha laga soo ikhtiraacay waa magaaladan. baska sidiisaba
jid walbo ayuu taariikhdiisa kaaga sheekeynaya. laakiin anaga si aan muuqaalka usoo koobno meelaha ugu muhiimsan aan ka hadli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo. waxaa stationkii hadda soo dhaafnay, waxaan gelaynaa meelaha oo taariikhiga ah ayaan fiirinaynaa. awalka hore qof ayaa hore istaagi jiray, ayaa sharxi jiray, laakiin hadda maadaama oo teknolojiyadii iyo wixii uu horumaray ayaa waxay isticmaalaan earphone-kan ayaa isticmaalaan. marka waxaa ku sharxaya maxaa la dhahaa digital oo recording ah. waxay leedahay Cambridge-ka taariikhdeeda wuxuu ku bilowday markii uu magaalada Oxford ka dhacay dagaal ardada iyo magaalada. waxaa jiray wiil arday ah oo baranaya sida falaarta loo tuuro, ayaa falaartii wuxuu ku dhiftay qof magaalada ka mid ah oo ku geeriyooday. marka dadkii magaalada ayaa ku kacay ardadii iyo dadkii magaalada degana ayaa dagaal xoog leh ka dhacay. arda qaarkood waa la xiray, arda iyo macallimiin qaarkoodna waxay imaadeen Cambridge oo magaalo dhismeed ah, magaalo ganacsi ah. marka ayaga bilaabay jaamacaddii iyo college-kii iyo ayaga aasaasay. marka taana waxay u suura gelisay inay Cambridge noqoto meel la tartanta dhanka waxbarashada magaalada Oxford iyo jaamacadda Oxford. marka hadda labadoodii waxay ku tartamaan. anaga waxaa soo saarnay intaasoo ra'iisul wasaare, intaasoo madaxweyne, intaasoo Nobel laureate ayaan soo saarnay. marka aan fiirsana Cambridge waxay soo saartay dad badan oo saynisyahan ah oo Nobel laureate ah. sida waxaa DNA-da meesha laga soo saaray, IVF treatmentiga, iyo waxaa la leeyahay xataa footballka, shuruucda footballka meesha laga sameeyay waa Cambridge. college-kan hadda aan soo dhaafnay waxay leeyihiin waxaa ka baxay qofkii soo saaray jet engine-ka, motorka jet engine-ka ninka soo saaray ayaa ka baxay. marka Cambridge waxa waaye jaamacadda 31 college ayuu ka kooban yahay. college walbana waa college madax bannaan maamulkoodii. marka waxay qabaan departmentiyaal. marka college walba waxaa ka baxay ardo caan ah. marka college walba wuxuu ku faanaa ardaygii oo ka baxay. sida hadda college-ka hadda aan soo dhaafnay. sidoo kale Cambridge wuxuu leeyahay riverka la dhahayo River Cam. River Cam-kan waxaa loo adeegsadaa punting-ka oo waa doonta ushaas lagu wado. waqti badan ay qaadataa in qofka uu barto. hadana waxaan joognaa Churchill College. marka waxaa loogu magac daray ra'iisul wasaarahoodii oo dagaalka labaad adduunka oo qayb weyn ka qaatay oo ku guuleysteen. Churchill College waxa waaye science-ka ayaa lagu bartaa. dadka waxay ku dhahaan dhismaha waxaa loo ekeeyey baakada secret-ka oo gacanta ku majoojiyey ayuu eg yahay dhismaha. sigaar badan oo cabi jiray isaga. marka waa college oo aad science-ka ugu xeel dheer oo wax badan oo soo saaray. waa sidoo kalena inta laboratory-gan asagana waa meesha oo lagu maxaa la dhahaa animal testing lagu sameeyo oo daawooyinka lagu soo saaro. marka ardada wax ku barata 6 sano ayay ka qaadataa inay waxbarashadooda ku dhameystaan. marka waxaana lagu baaraa daaweynta kansarka iyo ayaa baaritaan lagu sameeyaa. meeshan waxa waaye dhismaha oo cilmi baarista oo lagu sameeyo oo lagu barto petroleum-ka, gaaska iyo dhulka iyo laga soo qodo ayaa lagu bartaa meeshan. macnaa waxaana yaalo dhagaxyadii iyo waxyaabihii geologist-ka ayaa yaalo. marka korna saqafka waa saqaf muraayad ah, waxaa loo sameeyey haddii lacalla uu qarax iyo waxaas dhaco in looga badbaado. marka waa meel asagana cilmi baarista loogu sameeyo batroolka iyo waxyaabaha macaadinta oo dhulka ka soo baxo loogu sameeyo waaye. markaa fiirsana Cambridge iyo dalka UK oo dhanba geedo badan ayaa ku yaalo oo loogu talagalay magaalada inuu ka neefsado. anagana runtii magaalada Muqdisho runtii waa geedo badneed. waagii hore geedo badanaa ku yiilay. haddana waa muhiim inaan dib u soo nooleyno geedahaas oo geedihii lagu abuuro si ay Muqdisho u noqoto meel lagu neefsado. oo hadda xoogaa yar waxaa moodaa
in يعني hawada ay ciriiri tahay muqdisho maadaama dhismooyinka ay ku bateen geedihiina ay ku yaraadeen marka waa muhim dadka si iska wax qabso ah inay geedo u abuuraan oo guryahoodii geedo ku abuuraan guryahooda meesha u dhow oo aan gobolka banaadir kaliya lagu deynin oo ay si iska wax qabsi ah ay geedo u abuuraan maxaa yeelay geedaha marka lagu abuuro waxay suuro gelinaysaa in hawadii ay noqoto hawo oo nadiif ah oo dadkana caafimaadkoodii u roon maxaa yeelay muqdisho dib u dhiska ku socdo guryaha iyo geedaha guryaha badanaya marka waa in geedihiina ay bataan khubuurihii ay ku duugan yihiin askartii Ameerikaanka oo ku naf waayay dagaalkii labaad adduunka khubuurahan waxaa lagu qiyaasaa askartaas oo ku naf waayay ku dhowaad 400 oo kun oo qof runtii waxaa moodaa reer galbeedka gaar ahaan Yurub inay kuwaana qaateen yani inuu dagaal dhibka uu leeyahay iyo dhibkeeda iyo dheefkeeda maxaa yeelay dad badan oo malaayiin ah ayaa ku naf waayey runtiina colaad nin galaa laga wareystaa reer galbeedka runtii 80 sano dhexdoodii dagaalka ma dhicin maxaa yeelay waxay ku waantoobeen inta dad oo ku geeriyooday runtiina anaga laftirkeena markaa fiiriso odayaasheena Soomaaliyeed mahmaahyo badan ayay ka tageen oo ugu digayaan colaadda yani haddii aa fiiriso rag waday oo waayey waxay walaalo ku dhaamaan sidoo kale waxaa jiro mahmaaha oo caan ah oo Soomaalida odayaasheena ay noogu tageen ninkii habeenkii codkaaga yaqaano maalintiina raadkaaga yaqaano lalama culooba ay yiraahdaan maxaa yeelay qofkii haddaa istaqaaniin waa adag tahay inaad ka guulaysato hadda markaa fiiriso dalka Ruushka iyo Ukraine waa dad is yaqaano laakiin waa adag tahay dagaalkoodii qof inuu ku guulaysto waa adag tahay marka waa muhim nabadda ahmiyadda ay leedahay dalkan Ingiriiskana runtii aan joogno iskuulaadka waxaa lagu dhigaa gabayadii dagaalka ayaa ardada loo dhigaa dagaalka wuxuu galo dhibaatooyinkiisa iyo colaadda dhibka ay leedahay taas darteed ayaa waxaa arkaysaa bulshada Ingiriiska waa dad aad uga soo horjeeda dagaalka hadda waxaan usoo daadagnay khubuurihii waa dadkan ku naf waayey waxayna u nidaamiyeen magacyada alphabetical order hadda midka waa A dadka magacyadooda A ka bilowdo midka ku xiga waa midka B ka bilowdo magacyadooda halkan waa albaabkii laga gelayay marka waxay ku sifeynayaan hubkii ay adeegsadeen Ameerikaanka medium tank M4 iyo markabkii iyo baabuurtii ay adeegsadeen baabuurtii hubeysneed iyo gawaaridii iyo artillerigii dagaalka soo u dhacay dhanka badda iyo marka waxay leeyihiin xulufada ayaa waxay ka bilaabeen North Africa kadibna yani dagaalkii Atlantic oo yani la magac baxay taasoo ay dad badan ku dhinteen laakiin markay Italy ay imaadeen 1943 ayaa fursad weyn u siisay macnaa askarta Mareykanka inay meelo badan oo dalka Jarmalka ka mid ah ay macnaa dhaawac badan ay u geystaan marka waxay leeyihiin macnaa inta wuxuu leeyahay dhaawacyo badan warshadahoodii meelaha xerooyinka militariga iyo marka taasoo victory usoo hoyday 8 May 1945 337 maalmood
yacni ayay macnaa ay ku jireen maxaa la dhahaa dagaalka. alxamdulilah masjidkii ayaan imaanay oo Cambridge waa masjidkii caanka ahaa. masjidkan dhismihiisa wuxuu ku guuleystay bilado badan. waa masjid maasha allah oo ka faa'iidaystay ilayska qoraxda iyo roobka xataa inay keediyaan. marka saas darteed maadaama ay bii'ada u fiican tahay masjidka habka loo dhisay ayay bilado badan ku guuleysteen. bal ila kaalay gudaha aan fiirinay gudaha maasha allah. ما شاء الله مسجدكii waa kana alwaaxda ay adeegsadeen iyo ilayska qoraxda say ugu faa'iidaysteen. marka waa masjid oo yani aan ku baxaynin qarash badan oo koronto ah maadaama iftiinka qoraxda ay ka faa'iidaysteen. biyo badanna ma isticmaalaan maxaa yeelay biyaha roobka ayay keediyaan, taasaa la adeegsadaa. sidoo kalena kulaylaha waxay adeegsadaan waxyaabo dabiici ah. marka taas darteed ayaa masjidkan uu guuleystay inuu noqdo masjidkii ugu fiicnaa macnaa dalka UK. iyo designka qofka sameeyey ayaa wuxuu ku guuleystay alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin. marka waa masjid taariikhi ah. masjidkan muxaadarooyin badan ayaa lagu sameeyaa, barnaamijyo badan ayaa ka socda, dad badanaa kusoo islaamay oo yani oo dalka ingiriiska ah. imaamka meesha imaam muraad waa nin ingiriis ah oo muslimay, asagana nin aad u fiican oo maasha allah muxaadarooyinkiisa aad loo dhageysto waaye. marka waa masaajidkan waxaa la yiraahdaa masaajid British ah, yacni wuxuu israaciyey waxyaabihii islaamka dhismihiisa iyo dhismaha oo Britishka. marka waxaa waaye masaajid alxamdulilah oo israaciyey wixii hore iyo wixii cusbaa hadda. marka sharafay noo tahay inaan soo booqano masaajidkan. waana masaajid ku dayasho mudan habka ay u adeegsadeen ilayska qoraxda iyo biyaha roobka iyo waa community is haysto maasha allah. barnaamijyo badan ayaa lagu qabtaa, dad badanaa kusoo muslimay. marka alxamdulilah maanta inaan soo booqanay waxaan u mahad celinayaa saaxiibkayga abba yaha maasha allah oo meeshaan iga soo horooyey si fiicanna u duubay maasha allah. baaraka allah fiikum khayran idin dhaaf. haddana masaajidkii aan ka baxaynaa. waa kan masaajidkii maanta waxaan kusoo aadnay xaflad oo aroosaa jira, nikaax waa camiran yahay masaajidka. wuxuu ku caddeynayaa sida isugu xiran yihiin community ahaan markaa fiiriso. runtii waa masaajid aan aad ugu bogay oo u baahan in anagana aan kanoo kale aan muqdisho ka sameynay insha allah tacaala. ayaa ku dayasho mudan oo qoraxda say u adeegsadeen, siday biyaha oo roobka u adeegsadeen ay ugu faa'iidaysteen. marka insha allahu tacaala inaan ka faa'iidaysano sharafayno ahayd masaajidkan quruxda badan inaan imaano.